qodobka kale oo aan ka hadlayno waxa waaye qodobadaas oo dhan dadka ku saameynaya waalidka kamida waalidkaana talada fiican waa laga dhageystaa wixii fiican waa laga qaadanaya wada tashada waalidka iyo adiga iyo macallimiinta wada tashada laakiin qof adiga ka badiyaa ma jiro buundooyinka aa wadata shahaadada aa wadato xataa waa ogtahay inay baraka qaarkood ay sax ahayd ma jirto maadooyinka aa wadato shahaadada waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood buundooyin badbadan oo la siiyay ama si la xafid lagu helay oo faham lahayn in la iska wato nin macallin oo jaamacadaha wax ka dhiga dibadaha ka dhigay ardayba sanadka afaraad soo dhiganaya jaamacad islaamiga dhigta markaas wuxuu weydiiyay wa shahaadatu zuuri maxaa ardayga weydiinay waa qalin jabin raba markaas ku yiri markaad qalin jabiso mid qaadanaysa shahaadatu tasaala marka shahaadada waa in run ka sheegtaa waxa tahay Soomaa waa in run ka sheegtaa qodobadaas marka rabitaankaaga miya ma is ogtahay inaad ka adag tahay maadadan laakiin saaxiibadii gabadha mid kala jecel qof kala weydiin ma adiga dad isugu badiya qaraarka adaa iskale mas'uuliyaduna aday ku saaran tahay talooyinka qaado laakiin go'aanku aduu ka go'aan labo waxa jiri kara hal takhasus wax ka badan oo ku fiican tahay macnaheedu ma qofku hal xabiir ku fiicay Soomaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bidaan waa abuuray takhasus badan oo yeelan kara waxa badan ku fiicnaan kara ayaga kala huf midka kugu si fiican qaado midka kugu haboon qaado waxa jiri dhici karta takhasuska hadda aad dooratay qasab maaha inuu noqon doono midka aad ku shaqeyn doono dadka qaarkood haday qaldaan marka dambe waa isa saxaan meel kale ay aadaan shaqada marka isku xirna kaliya waa laga yaabaa shaqooyinka qaarkood marka ka soo baxday isla markiiba shaqo hebel kaliya aadi kartaa takhasus hebel bas ay gali kartaa laakiin qasab ma inta khasida kulligood hal takhasus ay ku dhamaanayaan ardayga waxa arkaysa jaamacadu imaanaya maxaa qoratay laabaan doortay laab hadhow ma arkay asagoo laabka ku jira war maxaa laabka ku galiyo adiga laabka doortay laboratoryga doortay laabka maxaa ku galiyay macnaheedu ardaydiisi laabka ku jira isna laabka ku jira marka hore door inta laabka galin laab fiican sax dooro ina wuxuu yiri buug qoray oo ka hadlaya takhasusyada sida loo doorto wuxuu yiri walaalkay iga weyn wuxuu ahaa kulaha dhakhtar kan ku xigana wuxuu ahaa injineer markaas marka dugsiga ka baxay kii wuxuu leeyahay dhakhtarnimo oo kan kalena wuxuu leeyahay injineer noqo markaan ku wareeraan isku dhaxdara kulaha waxaan doortay medical engineering waxa kale uu sheegayaa walaalkay kulaha markii uu dugsiga sare ka soo baxay dadkii waxay dhaheen buundo aad ugu sarreeyay keena kala gobolka meesha la joogo magaalada in asaa u sarreeyay aabihi wuxuu ku yiri adiga waxaan kugu aqaanay qof nashaad badan dadka la qabsada meelo badan ku fiican waxa doorataa saxaafad dadkii waxay dhaheen dadku dhan u yimid ama ya dooranka dhakhtar laga dhigo wiilkii waa fakaray meesha ku fiican uu arkay saxaafad uu doortay wuxuu yiri hadda wuxuu dadka ugu fiican ee wax qora saxaafad wax ku qora mas'uuliyiinka ah uu ku fiican intiinan yaa la iga xanaaqin ma idin ku jira qof aan magaciisa qoray aqoon raalli ahaada ma idin ku jira waa ku celinayaa mar kale intiinan ma jira qof aan magaciisa qoray aqoon magacaaga waa qori kartaa qalinka qaadatay midigta ku qabsatay qalinkaada waa magacaaga waa qortay sax Soomaa bidix u bedela qori kartaa bidixley ma rabo bidixlayaal ma rabo oo quran ma rabo inta midigta wax ku qorta magacaaga sida aad midigta ugu qoraysay bidix ugu qori kartaa Soomaaliya maaha faraqa u dhaxeeya aan fiirina mar magacaaga soo ma taqaani laakiin ma qori kartaa bidix ma qori kartaa magacaagii aad taqaano midigta ku qori kartaa maadada aad taqaano waa midda midigta ku aadan aad taqaan way maadada aad dooranayso midda bidixda ku aadan waadaan aqoon iska daa midda aad taqaano xirfadda aad wax ka keeni karto baro ayada